Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow kanaalka Xiskaal. Waxaanu soo gaarnay casharkeena 11aad ee kooraska QuickBook. Waxaan noo furnay company-geena Jaamac Company. QuickBook isticmaalayna waa 2018. Casharkeena ugu dambeeyay ee 10aad waxaanu ku baranay qaabka vendor wax looga soo iibsado deyn ahaan iyo sida lacagta la iskaga bixiyaba. Isla halka cashar ugu dambeeyay ee 10aad ayaanu ku soo baranay. 10kii hore ayaanu soo dhameystirnay alxamdulillah. 10kan kale ama casharada kale oo noo xigo waxay noqon doonaan kuwa ka sii baxsan oo macnaha ka sii faa'iido badan, laakiin aasaaska koobaad oo waxay u ahay 10ka cashar oo soo dhigana. intaas haddii aad taqaano inta kalena ku dara kartaa. Casharkan 11aad waxaanu ku baranaynaa qaabka loo sameeyo account expense ah. Account sida loo sameeyo waa soo baratay, laakiin account-ka markaa sameyso sida isagana wax loogu jiro mushaaraadka ahaato, haddii ahaato koronto ahaato, ha ahaato waxyaabahan kale oo qarashaadka kale oo dukaanka oo baxo ahaato, waxyaabaha sida loogu jiro ayaanu baranaynaa oo lacagtaas looga jiro. ugu horeyn intaan sameyn account iyo lacagtan aan jirin waxaan soo eegaynaa report-kan ugu dambeeyay casharka ugu dambeeyay sida ahaa company tag. kadibna waxaad tegaysaa qaybta balance sheet soo eeg. markii ugu dambeysay balance sheet-kana sidan ayuu ahaa. $10 waxay noogu jirtaa cash-ka, $100 waxay noogu jirtaa account receivable-ka oo account receivable qof deynaha noo maqan. asset-ka noo yaala hantida badeecada noo taalo qiimo ay ku fadhido waxa weeyaan 7,510 lacag. wax lacag oo wax deyna laguma laha dukaanka oo maadaama deynta aan soo qaadan isla markaanu bixinay wax account bible meeshan kuma jiraan. marka maadaama 10 leen noogu jirto cash-ka waxaanu sameynaynaa maadaama wax badan sameynayno lacagtan ayaanu qabanaynaa oo waxaanu ka dhigaynaa ina cash-ka ku soo darno oo ninkan wax deyna uu ku lahayn ayaan u muujinaynaa marka hore sida inta noogu noqoto 120. account receivable deemaha noo maqnay ayaa waxaanu ka dhigaynaa inuu noo keenay qofta lagu lahaa waxay ahayd $100. marka aad fiiriso waxaa lagu leeyahay Cali Xasan ayaa lagu leeyahay $100. marka asiga ka qabanaynaa waxaanu ka qabanaynaa Cali Xasan sida loo sameeyo waanu soo baranay. waxaad tegaysaa customer kadibna waxaad tegaysaa receive payment. Cali Xasan halkan ku qor. isla marka waxa ku soo boodaysa halka in $100 lagu leeyahay. 100ka ka qabo taariikhda sax. halkaasna waxa saxaysa boonada lambarkeeda lacag ku qabatay 8 iska dhig kaliya kadibna enter dheh. cash-kaada isla markii wuxuu noqday 120 ayuu noqonayaa. marka soo eegto cash-kaadi balance sheet-ka meesha waxa kaaga muuqda inuu 110 noqday. wax macnaha oo noo maqan ma jiraan oo account receivable ah. marka wax account receivable maadaama $100 oo account receivable-ka ku jirtay waanu ka qabanay oo lacagtu noo keeno. marka 110ka ayaa noogu jirta cash-keeni. waxaanu sameynaynaa marka inaan account sameyno account-kaasna kadibna aan expense ama koronto wax ku bixino. sida account sameyso waxaad tegaysaa list kadibna chart of account amba fudeed ahaan waxaad u tegi kartaa Ctrl+A. marka meeshan joogtay waxaad tegaysaa inaad dhahdo right click dhahdo kadibna meeshan aan ku rufato new ay ku qoran tahay. halka marka imaato account-ka noociisa ay ku weydiinayaa account-ka income ama expense ya waxyaabahan kale ku weydiinayaa account-ka noocu yahay. maadaama oo expense uu yahay expense dooro kadibna meeshan ku soo dhufo. maadaama account-ka expense yahay muxuu yahay marka ma account mushaaraadaha ma mid qarashaha oo qarashka yararka aha ma koronta magaca account-kaas inta ku abuuraysaa. hadoo kale waxa leedahay mushaar iska dheh mushaar shaqaale qalad u qoray shaqaale kadibna okay dheh. account-ka mushaar shaqaale oo ku soo baxay waa ka expense. marka waxaa sameynaysaa ina tusaale ahaan oo kale qof lacag siinaysa oo shaqaalaha ah. sida lacag si waxaad tegaysaa marka qaybta bangiga kadibna raad jeeg dheh. qaybtan raad jeeg mar walba laga baxshaa waxyaabaha mushaaraadka iyo qarashaadka.
sida cashirka hore kusoo baranayna deentana isagana meeshan ayaa laga bixiyaa oo lagu leeyahay waa account payable-ka ah. marka qaybtan waxaad dooranaysaa expense maadaama expense ay tahay expense la dooro meeshan maadaama expense ay ku abuurna expense dhe isla markii expense waa other iska dheh. marka halkan waxaa gelinaysaa account-ka data oo mushaar isla markuu kusoo boodaya mushaar markaad tiraahdo waa ka meesha mushaar shaqaale marka halkan waxaa ku qoraysa lacagta aad siinayso aad bixinayso oo mushaar ahaan u bixinayso. tusaale ahaan oo kale waa $20 dheh. qofka la siinayo meemada ayaa lagu qoraa magaceeda mar walba. meemada waxaa weeyaan qofka magaciisa waxaa iska tiraahdo jaamac oo kale iska dheh inaad jaamac siinayso mushaarkaas maadaama dad badan ay ku shaqeeyaan. haddii dad badan ku shaqeeyaan shirkad weyn ay tahay mid kastaba mushaarkaas siiso si hadhowtu u ogaato tixraac waa inaad magaciisa meesha meemada ku qortaa kadibna safe iskaga dheh oo enter dheh. waxaa soo eegaysaa marka reportkaada bal soo fiiri. reportkaada markii aad tagto waa kano qaabkan ayuu u yaalaa oo waa kano marka waxaa 90 ayaa kuga harta maadaama 20 aad bixiso 90 ayaa kuga harta ma jeedaa. marka haddii aad si fiican usoo eegto marka account-ka inay lacag ku jirto lacagta ku jirto expense-ga fiir oo qarashaada oo account-ka expense soo gasho kadib list-ta kadibna jaarta of account halkan ka fiir account-kan lacagta $20 inay ku jirto laga rabaa. waa kano hadduu kusoo bixi waayo mushaar halkan ku qor. mujeedaa $20 ayaa ku jirta markaa furto markaa saan ugu dhufato oo mushaarka saan ku yahay control plus q ku dhufo control plus q oo control q isku qabo saan u fur ka bacdi waa ka $20 ayaa konka ku jirto. haddii aad kusoo dhufatana waxaa arkaysaa inuu jaamac yahay oo haddii aad kusoo dhufato arkay boonada lambar dhexdeeda ku geyna laakiin kor ka fiiri 7 waa bisha 6 2020 expense weeyaan jaamac ayaa la siiyay meem ahaan account-ka ka baxdana waa all cash account-ka cash oo qasnada ah ayay ka baxday. sidaas waxaa loo sameeyaa xoo ahaa mushaar markaa siinayso. sidoo kale haddii aad rabto isla meesha ina koronto sameyso qarash dukaan oo kala sameyso isla new tag qaybta markaa chart of account imaato kadibna expense-ga dooro kadibna account-ka magacuu yahay hada koronto kale iska dheh dooro koronto iska dheh inuu koronto yahay isla sidan ayaa u sameynaysa sida hadda aan sameynaynay koronto kadib enter dheh. halka koronto expense inuu yahay ku soo baxdo waa ka korontadii lagu waqtigeeda la gaaray korontada inaad bixisaa rabtaa lacagtii telefoon ka tuurtay kadibna quick bona waa inaad ka tuurtay in ayadan ka jirta laga rabo moogtaa. marka raad jeeg tag kadibna cash dooro account-ka lacagta ka bixayso halka expense soo dooro isla markii expense halkan ku dhufo waa ka intan waxaa gelinaysaa koronto waxaa leedahay inta lacagta intay ahayd ayadan 20 kale iska dheh qaybtan koronto iska dheh faahfaahinta haddii kale oo iska dhaafi kartaa korontadan maadaama taariikhda wax dhan ku qoran yahay halkana mar walba taariikhda ka saxo koronto enter dheh. waa ka marka koronto ayaa ku soo bixayso waa ka halkan waxaa ka soo fiirinaysaa qaybtan listiga ka soo fiiri list kadibna chart of account qaybtan koronto ku baar hal mar account-ka control plus q ma ku furto waxaa laga rabaa inay ku jirto isaga $20 oo cash ka baxday koronto ah bishan oo taariikhdan waa taa. marka account-ka caadigan oo cash-kan waxaa kugu jiro lacag dhan 70 maadaama 20 iyo 20 ay baxdo. sidaas loo sameeyaa. sidoo kale haddii qarash dukaan rabto isagana meesha ka soo jar maalin walba qarasha ka baxo sida asagana qarashkana inta ugu jirto waxaa sameynaysaa inaad new tagto kadibna expense doorato kadibna halka ka sameyso wixii aad rabto qarashaada inay magac u bixiso. hadda qarash dukaan soo leedahay intra leedahay kadibna raad jeega tagaysaa halkaas waxa ku qoraysaa account-ka magaciisa inta lacag galaysa account-kaas ayaa sameynaysaa. marka sidaas ayaa qarashaadka loo jaraa. haddii aad koronto ahaato haddii rabto mushaar ahaato haddii rabto koronto ha ahaato badeeco qarashkeeda ahaato wixii halkaas ayaa laga jaraa. marka cashirkeena halkaas ku og yahay. casharaadka kale ee xiga intaan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum.